رحمة الله وبركاته. عمر بن الخطاب رضي الله عنه hadalladiisa ayaa waxaa ka mid ahaa saddex waxay xoojinaysaa waad keenaysaa labada qof saaxiib ah saaxiibtinimadooda ayay sii xoojinaysaa iyo sidoo kale midna midka kale wuxuu ku kasban karaa qalbigiisa. waxay tahay adiga noqo midka ugu horeeya salaanta bilaabaya haysdhihin muxuu asiga salaanta u bilaabi la'yahay muxuu asiga saas u samayn la maya adiga bilow noqo midka salaanta ku bilaawaya. tan labaad waxay tahay meel haddii la wada fadhiyo noqo mid u waasiciya fadhiga la fadhiyo sidoo kale taas kaligiisa maan sidoo kale qalbigaagan u waasic ihtimaam sii. waxay tahay mar walba waxaad ugu yeertaa magaca uu jecel yahay uu ka helo markuu ku arkab magacaas oo maqlo mid kuu jeesta oo ku farax hadduu saaxiibkaaga yahay hataa waa inuu magac fiican ugu yeedhaa. haddii kale waxaa laga yaabaa saaxiibkaaga ay isdhehaysid laakiin magaca laakiin uu ku karaysana qalbigiisa uu ku karaysana. saasay tahay tan saddexaad ugu dambaysa waxay tahay ugu yeer mar walba magaca uu jecel yahay.